ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 20aad waa waan isdhegaysanaa inta aan hadlin. bar ilmahaaga dhegaysiga wanaagsan. markaad wax muhiima u sheegayso isku day in aad heerkooda u dhaadhacdo ama la fariisato indhahana aad ka eegto. hadalkaagu ha noqdo mid ilmuhu uu fahmi karo. tusaale ahaan waxaad hubisaa in uu hadalkaagii fahmay adigoo weydiinaya igu soo celi wixii aan ku iri si aad u hubiso in uu ku dhageystay. u sheeg ilmaha yari si dhagaysigiisa u wanaagsanaado inaanu jarin marka uu qof hadlayo. ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.